والله إلهي عافماد إيموان لكن كوا بدن بالو فير لي عافماد كيga إنسان كويلا waa 25 jir 3 jeer guursatay iyada oo qabta xanuuno aysan u qarin kuwii guursaday balse dayacay markii ay la guri galeen kadib ladan maxamuud axmed ilinta ayaa ka qubanaysa mana faraxsana waxa ay ku nooshahay magaalada Qardho oo ka tirsan dhulka uu ka taliyo maamulka Puntland hooyadeed way geeriyootay aabaheedna waa da qudhiisu waxa uu ku xanuunsanayaa Hargeysa oo Soomaaliland xarun u ah kaligeed ayuu awlaad ka dhalay ladan iyadoo aan qangaarin ayaa si qasab ah nin loogu guuriyay maadaama aysan gaarin lahaynna garaadkii guri dhaqidda iyo in wax laga dayo toona isfaham waagii halkaas ka dhashay ayaa bilow u noqday nolol mugdi ah oo xitaa gaarsiisay in jirkeeda dhaawacyo loo geysto waa sida ay ii sheegtay xanuunada ay qabto oo sababay in 3 jeer la soo furo oo ninkii guursadana uu ka cararo iyo daryeelka hadda ay uga baahan tahay Soomaalida adigu aad ku jirto ayay inooga sheekaynaysaa ka raali ahaada haddii ilinta ka qubanaysa ee bedesho dareenkiina Soomaaliyeed oo in badan waligeed aan hor fariisan kaamiro laakiin maanta aadanta iyo duruufta jirta awgood ay qabsatay in soo fariisato in badan baahiyaheeda qarsanaysay qalbigeeda ku qarsanaysay qofku waxa muhiim ah inuu jirka ka qurux badnaado inuu qalbiga ka qurux badnaado laakiin qof walba wuxuu dareemi karaa baahida jirta markuu qof soo hor fariisto kaamiro aniga waxaan ahay gabadh sanadkii 5 aniga waxa kula jirta hooyada Allah iga qaaday aabahay isaga xanuunsan wuxuu ku noolyahay Somalilantaas kaligeed awlaad iga dhalay family aniga maanta jooga dunida ma jiro ama wax taraya markaan xanuunsan tahay ama muweysantahay ama dhibantahay waxa kaliya kula wadaagi kara dhibkaaga oo qofka adamganaya ama jirkaaga runtii in qalbiga jirka laga qurux badnaado wax wanaagsan in qalbiga laga qurux badan yahay aniga maanta waxa la noolaa sokor waxa la noolaa dhiikar waxa la noolaa neerfe waxaan ay qofta kaliya maalin 3 dhacda ilaa ilaahay intuu qoray maahan alxamdulillah dunida waa ku samaysanahay imtixaanka ilaahay uu keenay ilaahay caafimaad ima waayo wallahi ilaahay caafimaad ima waayo laakiin kuwa badan baa lagu fiiriyay caafimaadkayga إنسان كويلا waxaan iga codsanaya 3 kuul baan soo maray noloshayda mid walba waxa uu bandhigay xaalad aan ku jiro mid walba uu soo dhaweeyay intuu ay guursan way ugu yiraahdeen laakiin maalinta noloshayda gudaha u galay waxay igu noqotay noloshayda caqabad markaan sugayay farxad markaan sugayay garab istaag 12 sano noloshayda kamid maalinta 12 sano ilaa ay maanta noloshayda farxad ma arag تقرر ماذا حيكون ياله وحيجي يجلد وحنا منطقة أنا دعيجي وادس فاهمني كي كميرا الحمد لله إلهي بقى يقرأ إلهي هو يقرأ إني يعني كرتو وإلهي يقرأ إني مسين كرتو لكن قلت لك الله أصوف فريستا أنا بقى إن ده هي جماعة دايرته وين إن ده هي وجه كذا أساسي وين وجه قرب بلاه ما ترى والله مصحبة ترى اللي أنت يبدأ زمان وإن قلبي كده إسا waxaa laga yaabaa kuwa ila mid ah aniga inay habeenkii farxad ku soo hadaan aniguna ilmo ku soo hado way maanta kala galab adduun weyn boonti wan aankinin ku gato maasto soo karbala nool karbala nool neerfal kaaga saas u daadanaya mid soo dhacaya habad baa gacanta ay ka dhacday halka habad baa gacanta halkaas laga soo saaray jirkayga saas u noqday wada barbaraha madmadow bararkaas way jirkayga u noqday alxamdulillah oo ku qanacsana ilaahay wuxuu siiyay igu madacnani بين آدم يعني وحبي ما ترك لك ما أنت مش قيس الكرخة وأنكوش قيس ما يستو قفت ظروف يسمى بقى هو ما يستو مليه قفنا قف حنوسن مرة قف ولا بين آدم أو الدنيا وكنا نروح ورا قف عاف مع القمر إلهي رب سبحانه وتعالى بين آدم كدوشو كسبة لكن درهم يا قلبي ولا هيك ولا بدوي ما أنت واحد ولا عشرين سنة عليك إلهي بنا سوى معنا جودة دقيق مسلم بانا إلهي باين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلهي باير فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ما هم ولا كم كل هذا شيء أيوة كسوهم في الصلاة دي صدق الله ربنا ولا كعب ما أنتم حنا ولا لي وكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهاي نيجا عصنية إلهي درتي بوجه الله قبيل نيجا عصنية وصل معنا نمو إلهي درتي وهاي نيجا عصنية ما أنت إنا قرب ولا نمو في رسالة ما دام أنتم ممكن ولا نقولوا غير كبرنا إن إلهي رب سبحانه والباوه بعث لي
qof walba dunida uu ka tagay iyadoo buuxda oo sax u buuxda maanta awlaad ma haysto aan ku indho kusho xanuunkaasa qof walba iga reebay maanta gabadh yar oo shay laadisay ka taca laakiin maanta qof walba isu hanqal taagaya quruxdeeda markuu arko laakiin qof dareemi kara qalbigayga ma jiro waxaa ku jira marka insha allah qof walba ilaahay oo qulubtiisa qof walba qalbigiisa ilaahay wuxuu ku jiraa uu rumeeyo ani marka waxaan rabaa inaan walaaltinimada murugada ay la qaybsataa maadaama aanu qof dhiikar iyo sunkar la nool oo stress aan u baahnay haddana stresska aan noolahay waxaan iga rabaa garab waxaan iga rabaa walaalnimo waxaan iga rabaa islaamnimo inaad ilaahay darto wax iigu qabataan biwajhillah waayo maanta waxa ay qabataan u baahan idinkuna birka maalin baahidaysan idinka u baahan qof walba maanta wuxuu baxsado unbaa meel u yaala waayo dunidayda ayaamo iska kooban oo ayaama macduudaad qofna uusan adduunkan uusan ku waarin haddii qof ku waaray nabi maxamed baa lagu innaka mayitun wa innahum mayitun dareen marka waxaa dareenta maanta gabar walaashaaya oo ilmeynaysa oo adduunka kugula nool oo magaca soomaalinimo iyo islaamnimo kugula wadata ya maanta waa garanaya dad badan baa waxay dhahayaan nabi maxamed facebook waxaa soo fadhiistay social media laakiin dhibaatada haysata ma dareemi karaan ani unbaa dareemi karaa waxaa dakhal wajigaya ku yaala waa jidinin 12 jir igu sii igu geystay maanta awood ima sheegan karo iga awood badan marka bilasxaan ilaahay dartii waxaan dhakhtar ku tago iigeey dhakhtar meel iigeey intaas badad islaama oo mucaawinaada oo muxsiniinaad tii dhaxdirka islaamkaas xoolo baxa ani intaas ayniga cusubnay bifadl qof qalbigiisa kama turjumi karo marka dhaawacanta oo markaas boogaysantahay dunida dhan baa markaad murugaysantahay waa kuwa kaliya laakiin marka aad qoslayso qof walba uu kula qoslaya una kula dhool cadeynaya laakiin ma jiro xaqiiqadii marka ooyni qof kula ooynaya maanta ma soomo ma awoodi karo sokorteeda way dhacaysaa way kacaysaa waxaa iskaga bixiya ma awoodo gabadha ala noolahay maaha qof aan ehelnimo kula nool ilaahay dartii baa ula nool galaas biya maanta ma awoodi karo marka walaalayaal bifadla ilaahay dartii wax kale inagama rabo maanta wallahi wax badan baa dad oran jira hala caawiya anuu wariyaasha u geyn jiray tviyada anaa dhibkay qarsanaya laakiin waa qarsan waaya xaqiiqatan marka ilaahay dartii biwajhi illaah waxay igu qabta biwajhi illaah idinku aniga magac iga raadinayn qabiil igu raadinayn soomaalinimo ilaahay dartii maanta waxaan iga rabaa insha allah jazaaka allah ladan maxamuud axmed oo ilintu ka qubanayso waxa ay bulshada Soomaaliyeed kaga baahan tahay caawin degdeg ah si nolosheeda ay farxad u hesho maadaama ay noo sheegtay in sidii ay u qaan gaartay aysan helin wax farxad ah